Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ma tahay aroosad cusub oo ku jirta xilligii shahrul casalka? Ma isku aragtay kaadidu ku gubta, kuugu noqoto ama dib kuugu cararto mar walba oo isku daydid inaad kaadisid? Musqusha ku laalaabatid kaadi badan aysan ka iman, kaadida oo shiirayso ama xumbaynayso, xanuun qaska ah iyo cadaadis gumaarka laga dareemo, sidoo kale qandho wadata qarqaryo. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigu kugu socdaa ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Cilladda aan kor kusoo tilmaamay waxaa loo yaqaanaa caabuqa kaadi heesta ee shahrul casalka, afka qalaadna lagu dhaho honeymoon cystitis. Waana nooc ka mid ah caabuqa ku dhaco kaadi mareenka. Waa infekshan badanaa lagu arko lamaanaha isku cusub, waxaana aad u dareema haweenka, maadaama xanuunkan la dareemo xilli la kala xishoonayo in arrintan laga hadlo ama la isku sheegto. Aqoon badan aanan loo lahayn, lamaanuhu way qarsadaan, taasoo keeni karta dhibaato caafimaad. Caabuqan ka mid ma ahan xanuunada galmada lagu kala qaado, wuxuuna ka dhashaa is aragga iyo kulanka labada qof ee isku cusub, ma ahan xanuun qofka horey u watay kadibna lamaanihiisa u gudbiyey. Ilaahay wuxuu xubnaha taranka u yeelay heerar difaac oo kala duwan, kuwaasoo ka hortaga jeermiska oo diida inuu jirka gudaha u galo. Waxaa kaloo xubnaha taranka Alle ku dhex abuuray qanjiro u xil saaran inay soo daayaan dheecaano dilo jeermisyada kala duwan. Maadaama aroos la yahay, is arag isku xigxigana uu dhacayo, waxaa badanaa dhaco isbeddel ku dhaca jawigii guud ee xubnaha taranka, kaasoo hoos u dhigaya difaacii jiray, kadibna jaaniskan jeermiska bakteeriyada si sahlan labada qof isku gaarsiiyaan wuu badanayaa. Bakteeriyada ugu badan ee xanuunkan keenta waxaa loo yaqaanaa E. coli, waxayna ku nooshahay meesha saxarada ka soo baxdo. Bakteeriyadaasi inay usoo gudubto xubinta taranka aad ayuu u sarreeyaa xilligan, sidaas ayayna ugu gudubtaa kaadi heesta, caabuqna u dhalisaa. Su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxay dumarka ugu sahlan tahay inay dareemaan caabuqan ragga ka hor? Ibta kaadida ee dumarka aad ayay u gaaban tahay, oo haddii bakteeriyadu gaarto si dhaqso ah ayay kaadi heesta ugu gudubtaa, laakiin raggu ibtoodu way dheer tahay, sidaas darteed waqti dheer ayay ku qaadataa in kaadi heesta gaarto, waxaana dhacda iyadoo aysan weli gaarin in la kaadiyo kadibna halka ay kasoo laabato. Waana sababta haddii aysan haweentu aqoon u lahayn xanuunkan, ay lamaanaheeda ugu eedeyn karto maadaama isaga uu caafimaad dareemayo iyaduna ay xanuunsan tahay. Haddii aad xanuunkan iskaga shakisid, waxaa lagaa baari doonaa kaadida iyadoo lagu arkayo astaamaha infekshanka. Sidee loo daaweeyaa xanuunkan? Wuxuu dhakhtarka kuu qori doonaa daawo antibiyootik ah oo lagula dagaallamayo infekshanka kaadi heesta. Daawada oo si sax ah loo qaato waxay ciribtirtaa jeermiska dhibka keenay. Haddii lamaanaha isku cusub iyo kuwa aan isku cusbaanba ay raacaan talooyinkan, way ka hortagi karaan xanuunkan. 1. Cab biyo badan oo fursad ha siinin jeermiska inuu ku tarmo kaadi heesta. Cab ugu yaraan 2 litir oo biyo ah maalintii si kaadi heestaada ay nadiif u ahaato mar walba. 2. Isku day inaad soo kaadisid galmada ka hor iyo kadibba. 3. Nadaafadaada guud ku dadaal, hana isticmaalin subkiye caafimaadka u daran sida candhuufta, faasiliinta, kareemyada jirka la marsado iyo kuwa ay ku jirto maadada paraben iyo glycerin. 4. Hawsha kadib isnadiifi oo dhaqdhaqo ee sidaas ha ku jiifanin. Halkaas ayaan kaga baxayaa casharkan. Wixii su'aalo ah noogu soo gudbi qaybta commentiska ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.